xiisadda ka taagan xarunta looga taliya Soomaaliya ee fiilla Soomaaliya waxay u muuqataa mid xalkeedu uusan dhoweyn marka la eego xoog isku muquuninta ka dhex socota labada xafiis ee dalka ugu sarreeya gaar ahaan kan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xaraaradda taagan iyo xaalka murugsan ayaa dad badani ka qaadeen walaac iyo walbahaar waxa ay u arkeen inay tahay xaalad halis ka badan xilli kasta oo la soo maray xaaladuna ay taagan tahay karkaarka halista badan baaqiyo kala duwan oo ka kala imaanaya qaybaha bulshada ayaa ku soo dhacaya labada dhinac badi waxa ay soo jeedinayaan xiisadda xal loo raadiyo siyaasiyiinta Soomaalida ayaa u muuqday inaysan kaalintooda qaadan inta badan waxa ay la kala safan yihiin dhinacyada ishaya waxayna hurinayaan xiisadda iyo colaadda dadka dhanka kicinta kaga jira khilaafka ayaa aad uga dhex muuqda saxaafadda balse waxaa jira diranayaal dalka dhanka wanaagsan ka istaagay xaaladda daljirayaashan isdiray ayaa ah kuwa hadda rajo abuuraya dadaalada ay wadaanna ay dadku ka dharsugayaan hormuudka nabadoonaynta hadda socota ayaa ah Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye waxa uu hore ugu guuleystay nabadoonnimo uu la kowsaday markii Galmudug February 2020 loo doortay waxa uu hogaamintiisu la magac baxday waayo arag uu isku keenay Galmudugtii kala tagsanayd waxa uu weel ku kulmiyay siyaasiyiintii kala aragtida ahaa waxaana uu warankii uga tumay Yaambo waayo arag isku wadi kara ayaana loogu wanqalay bilowgiiba May 2020 iyo May 2021 waxa ay u ahayd sanad kaga soconaa madaxweyne kasta waxa uu afar jeer gogol wada hadal u fidiyay madaxda dawlad goboleedyada gudahooda iyo siyaasiyiinta dawlad goboleedyada waxa uu buddig u ahaa shirarkii dhuusamareeb ka qabsoomay ee jihada doorashada lagu mudeeyay maamulkiisa waxa loo aaneeyaa inay ka saaciday maaraynta dejinta iyo xal abuuris uu ku guuleystay shaqadiisa nabadoonnimo ee uu Galmudug ka qabtay ayay dad badan u arkaan inay tahay kulliyadda uu ka soo dheegtay cilmiga nabadaynta ee uu kula maareeyo dhammaan aragtiyaha isdiidan ee soo taxnaa tan iyo dhuusamareeb kow guulaha nabadaynta ee uu gaaray tan iyo intii uu xukunka joogay qoorqoor waxa uu nasiib ku leeyahay inuu ku soo beegmay xilli aysan jirin nabadoonnimadii waxgaradkii garta goyn jiray waqti ay siyaasadda Soomaaliya ku koreen dhaqamada kala awood badinta isxoog iyo ismaquuninta waxa uu qoorqoor isticmaalay falsafada ku dhisan wax wada lahaanshaha waana sirta ka dambaysa inuu 18 bilood kadib ka shaqeynayo wada hadal iyo wada shaqeyn dhexmarta siyaasiyiinta Soomaalida gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo dalkan ugu sarreeya afar shaqo oo uusan jirin madax hore u soo qabtay ayaa ka dhigaysa Axmed Kaariye nabadoonka siyaasadda ee Soomaaliya kow caleemasaarkiisii waxa uu xilka kala wareegay xaaf oo kalkii hore diiday nidaamka doorashada ee Galmudug balse kolkii xilka loo doortay waxa uu gacan midug u fidiyay madaxweyne xaaf taasoo horseeday inuu gaalkaciyo caleemo qoyan lagu soo dhaweeyo labo wadajirka Galmudug siyaasi kasta oo Soomaaliya waxa uu ku riyoonayaa marwin inuu dhaqan geliyo siyaasadda qoorqoor sababtuna waa inuu garbihiisa taagay kuwii xilku kala irdheeyay isla markaana doorashadiisa kula tartamay saddex shirarkii doorashada dhuusamareeb waxa ay martigelisay shirarkii doorashada ee Soomaaliya ee xaaladda kala guurka kaga baxaysay waxa ay hoy u noqotay madaxda shanta dawlad goboleed martigelinta iyo maamuuska qoorqoor ayaana furo u ahaa shaqada doorashada ee hadda lagu guda jiro afar heshiiskii xamar taariikh qoran oo togan haddii lagu tanaado qoorqoor ayaa haysta waqtigan waxa isagoo kaashanaya Cali Gudlaawe iyo ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble ay hor istaageen xabad ka dhacday caasimadda xilli ay siyaasiyiin badan oo kala darafyo ah ka shaqeynayeen in caasimadda lagu dagaalamo waxaana uu hormuud ka noqday in laga laabto labadii sano ee muddo kororsigii baarlamaanka federaalku uu ansixiyay kasokow rikoorka u yaala madaxweyne qoorqoor waxa uu markan isku xil saaray inuu soo afjaro xasaradaha ka aloosan fiilla Soomaaliya khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble imaatinkiisa shalay ee Muqdisho ayaa jawiga caasimadda bedeshay waxa uu muuqdaa inuu kulamo ka miisaan culus kuwii hore ka bilaabay caasimadda waxa uu ilaa imika dhexda uga jira waan culus waxayna xaqiijinayaan warar soo baxaya in hawsha uu wado kaldhow Soomaalidu halhays ka dhigan doonto in siyaasadda la sarcayn waayo arag kala wardoon laga dhigo taas waana bedelka oraada caanka ee garyaqaan inaysan weyne ayaa garta loo geyn jiray waxa muuqanaysa in qoorqoor dadaalkiisa ugu dambeyn ay tegi doonto halka rasmiga ee xalka uuna soo gunaanado xiisadda halista ah
ee hadda taagan taasoo dhammaan dhinacyada ka mashquulisay tareenka doorashooyinka. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada? ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka, higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.